الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد إلى ذلك نبضك يا محله إلى رحمتك نسيا محله إلى الدين الإسلام كنسيا محله سبحانه وتعالى وأنه إلى لنا هذا الكي مال إنك سيكون في علاج دردانة كاسو إنه عقاشة وشهرة عقاشة يا نحل أبوتين أنا وحالة توسيان الله والله يا إلهي ما هذا سبحانه وتعالى وحالها هاي وحنا هم بلينا جامعة ألفا إيو مدحديدة يتجود ألفا وطن كسمة سنبا يا أرتدى مانتا قالين تبيسي الله بقولي لي همبلي الله وحكلان همبلينا والدك كل ذلك أرتدى إلى جامعة قاسية ولو حن أدوهم بليه هويوي يا هويوي أنا كانوا طبعاً هر سومانا لبا سكنت له قرى لهاد مركا ضمب اللي اسكو درسمي سومالي هي سومالها أرتدي كسب هذه إسكولة الخاصة لابد إسكولة كوف فلان وعين مركا لابد إسكولة ولا قد اسمه مركا حمر مركا وحكة حمر بالجيه أو إنجليز لابد إسكولة اليوم أيامه وهاجرنا وتقنع وحنو أنا قال لي إسكول كليلا لفولة وأنت كليلا وحوي أنا يو حكيت شني حسين كي هراء هانشة وسارة دن ما كان هانشة إسكندوها قبل كا تقدر مركنا هبين كي 6 كيلومتر بيه وشوف تأفقيه هبين كي أنا باور تناقور تك ما كان شمعات هنا حمر ميلا ساحنا ما نهني كذي ونسولو جاي كذي يعني وحاولنا شيء أنا نتجنين أي نضيشه واحد نلتشرتي تضبط يشنتي وحلا سمي جامعة جوهريسة جامعة أمدلوس بحي ومغشلة قد يصير لا ويشكين وحلا قد يتلياني جامعة دتكي أبضنا أردد قشي غير سومالنا قبضنا وحلا قاعدين ميرت بعد قاعدين أردد قيس أردد بريقا قشي بدن كودي ويودي كروائين يود إحدى شوقي سكت تجين عربتها سويها كذي لأنه وحوي قربة أهل ماشوا دقاوح كل دقالية وهاي ما أنت ولا أركتان الحمد لله رب العالمين ورجيه بعد شوفتان ما كان واحد كيلو ما كان كبح على السكات دريانا بقى شام عدمي كذي سكور الشباب شلون دبده أيام وبحنا ما أنت ودك كيني بعد شوفتان مقالي بعد شوفتان والد كيني بعد شوفتان الحمد لله رب العالمين برعو هذا وصلنا قناه سجالية تضبية سجاشن شيء ما كنت قاعد كسوكينا معي وح سكول كتير مجد مركا سنة كبعدي أي عمودنا شام عضه الله تشكريني واحد جديد مركا ميركي إله في عناية محمد حاج حسين صحيح محمد حسين هي الصوت أنا أقول شغلة كلية في بدأ الصوت في سكولة دي ما تبي ولا فرد تستوي في هرجيس تشين كذا هي فرستينه في مع شور كيف فرستين وقت بعدين يعني سوى عويوي إن شاء الله ما نبغى نسوق لنا فيسبوك waxaanu jaaniyad baan lahayn Somaliland community baan lahayn Finland baan joogay ruqsana soo qaadanay waxaan doonayaa in dadka dawarsanee noo fasax sanaadiq balna soo siiyay afka ka darala aan ma caruurteedii macaadeeyay magaalada santarka magaalada ku faafnay hel maasna caawiya halka salaad lagu soo rido lacagtii baan soo dirnay maantana alxamdulillah rabbil caalamiin inta soo jaamacado ayaa sameysay وانا post conflict ما كان قال على سيب حيك بعدي أيها
ayaa waxaan samaysmay marka waxaad arkaysaa in nabadda dusheeda lagu kori karo oo lagu dhismi karo oo sameyn karo Somaliland taariikhdeeda hadda aragtaan waxay nahay wadankii ugu horeeyay ee Soomaaliya calan qaatay inagii wadanka Nigeria sama wada qaadanay inagoo December bay qaateen inna waxaanu qaadanay June waxaynu dawladnimadeennii aynu siisanay ra'yi oranaya shanta Soomaaliya isku yimaadeen taas waa ta keentay inaan Soomaaliya ku darsano Soomaaliya ma ku darsanay Soomaaliya marka maba heshiis meeheen in dawlad iyaga ay sayso qabaal isku haysto 10 sano ay haysteen daaqliyad ay isqabsadeen ragii hore tagay bariga waftigii tagay hada la sheekaysan inta ka nool waxay ku leeyihiin qola waxay nagu jira war haysanaa iska jooga in ilaahay inaga noqonay xabagtii isku samaysay commonkii noqonay enemigii halkaasaynu dawladnimadeennii aan bilaa shuruud ku bixin waad ogtihiin wixii dhacay haddaan aad taariikhda leedin sheegin oo taariikhda ka xishootaan oo iskuulada lagu dhigan oo aan banaysan binaadamka haddaan taariikhdiisa aanu fargareenin mustaqbalkiisa ma garanayo 10 sano waxa 1981kii ayaan markaa jabadu samaysantay jabadu iskama samaysato jabadu waxa keenay cadaadis qof kastaba cadaadis baa gurigiisa uga galay ilaa ceergaaba ilaa gabiili dadkaas qof kastaba arrintiisa soo isirkiisa lagu diliyo oo Soomaali xumo lagu dileen oo wadan xumo lagu dileen ayaa ehreer ahaan lagu diliyay taas qoriga keentay 10 sano baynu dagaalamin dadka dhintay hadda waxa waa konta ku baalaylaha adduunka qoraa laakiin inta gaajo u dhimatay inta biyo xumaan u dhimatay in dadku waxay mid xareerad ba hayno adoo magaalada marka ay hawd qabo oo ajadi caloosha wada dhintay oo wada dhintay dadkii waa wada dhamay inta naga dhimatay ciidaas sabanta koobiyo sagaashii halkan alxamdulillah rabbil alamin aynu dowladda ku qaadanay koobiyo sagaashii saddex arrimood baa lagu heshiiyay reeso maada oo dhan kuwii dagaalamay maxamed siyaad dareen la dagaalamay iyo kuwii maxamed siyaad taageeriyay reeso maada hadda la isku saddex qodob baa la qaatay iyo in dawlad loo wada leeyahay aan samaysano horta saddex bilar ay Soomaaliya ku dhisan tahay waa saddexda marka waxa weeye inuu saddexdii ilaalinaaba weeye saddexdii laakiin aan shirka kala keena looma baana sheega kale oo faylashii la soo faqaa faylashii la joojiyaa leena waxa dhacwaya 1993 ayaa shir lagu shiray boorame ahad qarameed baa la sameeyay marka waxa lagu heshiiyay inaynu saami qaybsiga ku fadhiisino beelo inagoo qaybsanayna kuraasadii 60 oo 80 tii baynu ku maalmo ku soconay 2001 ayaynu sameeyay referendum multi party system baynu qaadanay multi one vote baynu qaadanay waxaynu qaadanay 2002 ayay dawladda hoose sameeyay election ka horreeyay ilaa 2002 waxaynu qaadanay 6 election baynu sameeyay oo ku dambeeyay 2017 inta waxaynu ku soconay distoorkeena oo qoraya in Soomaaliland dadku isku wada xuquuq yihiin laga guulay beelihii oo loo baahay multi party system oo asxaab la geliyo maanta in lagu sheekeeyo saama qaysi heerood horta meesha ma jirto waa inaan ku xisaabtanaa one man one vote lagu xisaabtanaa weey maanta hadaba maxay noo yahay problemkeena maanta maxay tahay maanta problemkeena waxa weeye waa aqoon darro haddaan aqoon jirin waa saaw sheegay maale de horumar ma imanayo laba waxa weeye waa qabiil qabiilka muxuu keenaya qabiil waxa Soomaaliya awrka hore awrka daba socodkiisu leeyahay haddaan anagu madaxdayada qabiil ka fogaano oo eex ka fogaano kuwa naga hooseeyana sameyn maayo waa leadershipka ayaa qabiilka hogaaminaya marka cadaalad keeni waayo inankii inantu dhashay inankii inanku kala u kala eexdo de qabiili baan ahay eex baan keenay maanta wax kasto inagu xumaada qol in qori la qaato xaraan weey waxa uu tagay qoladan caareen ayaa u tagay qolada igad
يا وتري جنرال بالودري واحد ترى محاول دقالميسا waxay ilaahay waa la maarjinaa askariyeey waa la duleeyay waa la xumeeyay waa la fakeeyay waxa Soomaaliland waxa leedahay multi party system tabashada tabanisaan asxaabta ka sheegi kartaa waxa ka sheegi kartaan media free leedi oo ka hadli kartaa waxaad ka sheegi kartaan mechanism traditional ayaa ka sameyn kartaa laakiin ina qori qaadaan ila tii ogolaan ma yaleeyay iska daa in qof dishaanay hadaa guri barakaco maxkamada heeg baa leedigay baa waa dameeyo u baahan maanta qori qofka qaata muxuu jeedaa soo maaha in oo ina kiciyo rashad aan jirin intaas oo wada u banaanay walaal marka waxaan leeyahay nabadeena aan laashano burco waa xareedii tacliinta barateen dabcodkeeda hal maqlo oo idugiyaan codka caaqilka ee jaahilku iska cod dheeraan codkiina wanaagsan dadku isbara way Soomaaliya wala Soomaaliya horta Soomaaliya wala ma jirto wax Soomaaliya dawlad ka jirta Soomaaliya horta ma jirto waxa weeye sidoo loo dagaalamo dhalinyartaas ayaa la ictiraafay si khayraadka dagaalka ka socda kharashka ku baxaya sidii loo qoran lahaa badda loo qoran lahaa ayaa loo ictiraafo laga saxo maanta waa ogtiino 5 dawladood baa jira 5 dawladood hortaanu tiikis baayay u tagay hadaa la tiikis baayay u tagay hadaa la wasalaam ka soo 5 dawladood mid ka taba magaalo haysata nimanka xamar jooga nimanka ee Koreeda u bixiyay Koreedaasi mid qoro oo saameyn ku leh dhulka uu xukumayo ma jiro wasiirka arrimaha dibadda waa reer Garowe wasiirka qorsheyntu waa reer Dhahar wasiirka ku xigeenku ra'iisul wasaare ku xigeenku waa reer Hargeysa kamaaliyadu waa reer Boorame haddaaga ka amniga haysta waa reer Beledweyne waxay xukumayo kaliya Muqdisho oo cashuura ilaa 150 milyan ka soo qaataan bishii oo cashuura 150 ka iyaga ku xukumaano ku cadaadiyay ku dilaan barna mushaar bay u qaataan hadda way ka tashanayaan Soomaaliya way tashanayaan talaasna qayban ka noqonaysaa in iska qaadaan Koreeda gacan baan ka siinay insha Allah taala waxa maana loo tahay on hambaliyeen yani la ilaa Sambaloshe oo ahaa sirdoonkii u haysan jiray waqtigii Sheekh Xasan Sheekh wuxuu yiri warnimo yahow mar haday Soomaaliya waa Soomaaliya Itaaliya reerka soo magaaladiisii haysto daanaga haddana reer Muqdisho waxaan loo xukuntaan ma jirto ilaahay fiilada Muqdisho fiilada Soomaaliya waa inuu hawnin hawiyi fadhiistaabo inta la isku imanayo waanu taageersanay ra'yigaasna waa inuu ha fadhiistaa dadka magaalada waa inay fadhiistaan ma ina yaro ka yimid dibadda baafale ka yimid inuu fadhiistaa ma waa inay fadhiistaan gacmaha waan isku siinaa insha Allah taala waxa kale oo hambalyeynaa shirka hobiyo ka dhacay hobiyo waa qoladii berigii USC ee nala taqaanto qisay afweyne imankana waxaan leenahay weli waan walaana xiriirkii fiicnaa wixii xunay Soomaali baabiyan oo taqaanto diyaar baan diinaba insha Allah taala walaalayaal bish axadii dhaweyto waxaan gaanay heshiis doorashooyinkeena waa nolosheena weey waa guusheena weey waa haweeye dhimashada cadawga weey waxaan hambalyeeyaa madaxweynaha oo noo ogolaaday in plan B qorshihii adduunka lagu dhaxdhaxaadiyay oo noo soo qoro waana ogolaan labadii xusb waan ogolaanay waxaan doonaynaa inaan doorasho wanaagsan sameynaan doonaa insha Allah taala waxaan doonaynaa inaan khiyaar fiican oo dumar iyo rag ay soo galaan baan doonaa insha Allah taala waddankeena waxaan ku sameyn karnaa taayirku isbedeliya inaan taayirka qofkii shaqaysan waaya waa in aanu gudoomiyaan ahay shirka dambe haddana ma wadi karto waan ka baxaya waa dimuqraadiyad weey madaxweynaheena waan bedelinaa hadduu wadi waayo laakiin qori way naga xaaran qabyaalad way naga xaaran qofka xun ee inta xil loo dhibay xilkiisa ka soo bixi waayo
hareereenina isaga ku kooba qaladkiisa ku kooban leenahay heer ceergaawo yimaadeen shalata casuumad baan sameeyay odayaashii reer ceergaawo dhan waa la keenay nabadda inagala shaqeynaa insha Allah taala qofkii nabadda diida way meel baan uga soo wada jeesanayna insha Allah taala meel laano qofkaasi ma xumeynaya qof inagu dhanbayna xumeynaya waa inaynu cod midaysan aan ilaaha no waa ku diiday nimanka dibadda jooga cabdiqani waa inay yar dibadna muu tagin jaamacad u abuuray kuwii dibadda jooga markay waxba qabsan waayeen ayaa waxay doonayaan inuu halkan inaadeerkood fadhiisto oo uu shaqaha halkan ka siiyo waxaan leenahay walaalayaal waxaynu ducaynaa aqoonada ceelaf weyn ilaahay waxaan ka baryaa ceelaf weyn inuu waa family waa qoys waa family fiiru baa dhaxgal ilaahay beerkooda burcad isku mariya ilaahay ka baryaa subhanahu wa ta'ala waxaynu habaarina kuwa isku soo diriya dibadda jooga ilaahay gaalada ay ku saliido imaaleeno ilaahay soo basaafir insha Allah ta'ala kuwa wada xawaa filmada ka shaqeynaya gaalada ay ku saliido insha Allah ta'ala marka walaal waxa leenahay aynu ku midtida dawladnimadeena aan la tartanno wadada hadana Soomaaliya wada hadaladeena waxaan ka sameeynay position paper baan soo jeedinay position paper wuxuu oranaysaa waa wada hadalka waa ogolahay hasahaate waxaan doonaa madal international oo dad inoo kala qabta oo hadhowto waxaynu ku heshiino garantii noqdo waxaanu ka joojinay oo madaxa oo soo geeray wada hadalada wadamada loo yaqaan front countries Djibouti waxaan yiraahdo kumarti gelin mayno Ethiopia waxaan kumarti kama soo qayb galis Eritrea kama soo qayb galis laano dana gaaray leeyino iyagu dhaxamar bay ku milmeen marka meel ka suginaa dhaxdhaxaadnimo adduunka wadamada frontka lagu madaro haduu khilaaf yimaado laakiin waan ogolahay inaan wada Soomaali la shaqeeyo laakiin kuwa hadda jooga la hadli mayno waa inagu ceeb dad aan cidna metelin oo cidna soo dooran oo maandeed aan haysan oo tuug ah inaynu la hadalno oo isku keen taswiiraan xaraan bay ka tahay aan isla kaay taswiiraan la sameeyay ma taswiirin maysa waa mahadsantihiin insha Allah ta'ala dalkeena baraara oo barwaaqa ah oo loo soo haajiray oo laga haajirin insha Allah waa ka doonaa wanaaga isfara xumaantiga iska nahiya madaxda mar wada duceeyayo شبعك استوحى ودعية شيخ خليل بينما ندعينا إن شاء الله تعالى سعون ويله أنتينا قدرنا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله